بسم الله الرحمن الرحيم anigu ilaahay baan ballan u galay inuu codkan codkii igu dambeynaya yahay Soomaali dambana aanan hadalkeeda liga maqlayn mana dooninin fiidiyowgii u dambeeyay inaan ka hadlo wax ka dambeeyo laakiin 12 xildhibaan oo email ii soo diray codsigoodii baan ka jawaabay wiilka mucjisadow noo maanta aqli nasiib baa lagu yiri xaaladdu way qasan tahay waan ognahay laakiin maanta aqli nasiib aan ku tala baxno anigu nin ilaahay idin soo diray oo halaaga Soomaaliya ku socdo idinka samata bixinayaan ahaa anigu laakiin taas ay igu soo celisay taasna waa dardaarankii igu dambeeyay abid codkayga dambe aad noqotaan oo aan laf iyo xisbiga wala taltarmay maantana waxaan siinayaa sirta socoto ee ugu dambayso baarlamaanka hal baan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed oo dawladdiini waa afgamisan tahay yacnaha qarnimadiini waa la afgambiyay anigana horay waxaan u sheegay waa wada aragteen shirkan waa idinta sheegay 3 bilood ka hor saacada hadda aan la hadlayo gabre ayaa ku soo laabtay dawladda Muqdisho jooga waxa shir ku jira gabre waxa ku jira ninkii la dhijir xulo waxa shir ku jira ninkii la dhijir ra'iisul wasaaraha waxa lagu dejinaya Kamaaladin safaaradda maanta lagu dejinaya waxa Soomaaliya ka socdo maanta laba wada ayaa saaran tihiin xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed labada wado mid ka raacaysan idinka idin taal waxaan rabaa in aad shacabka Soomaali iyo inta aqliga garanaysa inta aqliga u saaxiibka maanta ay difaacdo baarlamaankiina dawaarna la difaaco nimankan mooryaanta ah ee madaxweynaha Farmaajo iyo khayr darka laga saaro hadda ay diidaan kilka shanaad baad noqonaysaan waxa laga takhalusayaa oo la rabaa xataa food iyo waxa lama rabo waxa la doonayo waxa weeye inuu shirgudoomiye ka noqdo ninka la yiraahdo ninka la dhaho muday xataa food in la soo sheek qaado oo la keeno miis oo lagu kala baxaa tamay ogolaan nimankan mudada loo dhiibin waxa weeye 6 bilood inuu noqon doono 3 sano oo haysan doona forever waaya waa u dhamaatay waxaan doonayaa marka inaan hal idin xaqiijiyo waan idinku celinayaa 148 xildhibaan waxa aan ahayn darka way ka baxayaan maxaa dhacayo waxa dhacaya dil waxa dhacaya shirqool Muqdisho waa lagu kala qixi waxa dhici doona kilkii shanaad inuu noqdo wuxuu dad ba xabsida laga buuxin doona dad ba wallahi billahi tallahi waxa furmaya jeel ogaadeen bad maqli jirteen inuu furmayo ilaahay magac jeel Soomaali والله جال صومالي بافرماي وبالله وطلعي قبري أنا ما أنت شحذ هالكاس إنك يسود الجيم حلبان كمان أو أولين يشيلن 8 دولار أو كقة تخرناجو والله وحكون قرن صارون قالوا بالله وطلعي شرفتنا والله جا قاضي أدي أنا حبس بقودن بين دونه مقدشين هالي دونا مجران صوماليين هالي دونا مجران ديمقراطيين ما أنت الأفضلية قرن مدينة ما أنت الأفضلية هذا حقيقة بهنتي وين ما أنت قف كستو Soomaali oo darmirnimo iyo dadnimo ku jirto waxa waajib ah inaad soo baxdaan inaad u mudaharaadaan inaad iska celisaan dulliga idinku soo duulay intay soo saxiixeen shirkii qaa'inimadii oo dulinimadii ay soo saxiixeen ayay la xumaatay haddana waa la ogaaday ceebtoodii waa la afgambiyay waxaan idin sheegayaa baarlamaanka Soomaaliyeed nin hooyadii aabihii ka furtay baa maanta socdo haddii wax la arkay adduunyada lama arkin ninka maanta jawaari ra'iisul wasaare maanta jawaari inuu haweysto waa nin hooyadii ka furtay aabihii oo raba inuu guursado way waa taariikh cusub way taariikhda halka waxa ka dhalan doonana waa ogaan doontaan sharci adduun lagu arkay ma jiraan hoosna inuu Farmaajo ka qoslo qol ku jiro u dhaw oo ku farxa arintan iyo filinkan isagana ka dambeeyo filinkan oo dhan maanta waxa lagu dijiraa jawaab Farmaajo khayre Jamaaluddin Gabre ninka la yiraahdo dhuxulo dhamaantood oo dhan waa la qoondanay hal meel baa la fadhiyaa maanta Gabre baa shaqadii ku soo laabtay waa kilkii shanaad oo meesha taal qof hadli doona ma jiraan qof nuudhi doona ma jiraan maanta afgambiska soo socdo haddii aad diyaar u tahay u food garee ra'iisul wasaaraha haddii aad diyaar u tahay inaydan wixii la sheegay aan burburin labadan masiibada aad dalka dhaafiya khayrana hala taakulayo خير نيك اللي يرادو هلا تاجر استغفر الله خير يعني هنا خير لا يا هلا تاكله نيك اللي يرادو فرناجو بالك اللي يراد فرناجو يعني توجن خاينك وحن كوضع نيك اللي يرادو ان جواري نيك كانوا يفك كي أنا كلب بحد والجواري اسكي بدل حكومتها وحبك كمان قبل كتار جواري نوحوا dhibka nacab nin wuxuu wax walba badamiyo wax ninka xusul buu ahaa nin wax dhaxgal jiribo ah balse caar wakaas
arka markii isku dhaceen jawaari baa iga taageersanaa labadii ra'iisul wasaare ee xasan isku dhaceen aan arag isagoo lahaa ma aysan dhicin furaaq wixiidan arag ayuu jawaari arkaa shacabka wixiidan arag baa jiro maanta baarlamaanka Soomaaliyeed 10 kun qaadanayo ee kan baqalay wasiirnimada maanta ku eego wallahi inaad wasiir ahaanin wallahi magac allan ku dhaana inaad xildhibaan sharaf la ahaanin wallahi inuu san codkaada shaqeyn doonin maanta dhunkaal weey waxa aad cunayso waa mulkumoodka ku dili lahaa weey waxa socoto arrin cusub oo ah nin aabihii guursaday aabihii hooyadii ka furtay oo hooyadii guursaday weey waxa socdo khayr wado iyo farnaajo ay wadaan waxa khayr wax sharci adduunyo iyo sharci lagu arkay caawadan baarlamaanka Soomaaliyeed hadii ay aan waxaan sheegay been ay tahay bal rajada ugu fiican waxa weey caawa ha lagu wareejiyo shirgudoonka ninka la yiraahdo Cabdi Xaashi labada aqal ba soo fariistaano labada aqal waa nimankii doortay gudoomiyihii baarlamaanka waxaan ka codsanayaa labada aqal inay kala fadhi degdeg ay qabtaan labada aqal ha lagu kala baxo xataa maaliyaysan gaarin keensadda waxa artaan hal dhaho waxa artaan keensadda jawaar Soomaha wuu tagi isla 1 hour gudaheena la hal maalin gudaheena ha lagu ma ogola gudoomiye ay doortaan ha lagu soo horta haduu jawaari arinta loo socda ay tahay taas idin ku cadeynaya bari Cabdi Xaashi ha shir gudoomiye baarlamaanka hal isku yeer labada baarlamaanba ha fariistaan ha loo food gareeyo waxa ay rabaan ra'iisul wasaare ma yeelayaan ha keensadaan waxa ay doonayaan xataa mudayga sheegayaan ha keensadaan wallahi inaysan yeelin oo billahi oo tallahi wallahi inaysan yeelin sababtoo waa afgembis baa loo socdaa meeshan looma socdo jawaari looma socdo qaranimada Soomaaliya dimuqraadiyadda kilka shanaad jeel Soomaali baa soo baxayo diyaar oo how waxa watana waa Dubai iyo Ethiopia iyo dadka dambeeyaan anigu waxa ma qariyo wiilka ana idin si sheegay inaan sa sheegay ay dhabtaayna ninka isku kalsoon oo iga wallahi iga billahi iga tallaay ay tahay waxaan idin ku xaqiijinayaa 3 bilood koor baa idin si sheegay inay taas soo socoto oo baarlamaanka iyo xukuumadda ay isgeli doonaan labadaana kala bixi doonaan 3 bilood koor uu ku jiraa dhageyso mid baan rayn doonaan darka ka bixi doona maanta Soomaaliya oo dhan waa laba waday saaran tahay inaad noqotaan jeel Soomaaliya oo soo baxo halkaas inta Muqdisho oo qof kasta oo Soomaaliya ay ka taliyaan 3 sano halaaga adduunka la galo ay farnaajo iyo khayr ka taliyaan iyo inaad maanta dimuqraadiyadii iyo qarnimadii Soomaaliyeed aad u istaagtaan labadaas aan ku soo gabagabeynaya anigu sheeka ma waday waa soo gaabiyay waxa socdo oo maanta in inaga dhaadhicinayo waxa weeye wiil hooyadii aabihii ka furtay oo guursanayo hooyadii hadda raalli ka tihiin cadaalad darrada iyo qabyaalada iyo qurunkana waad ku shaqaysan jirteen halaaga gala hadii idan daacad iyo Soomaalinimo iyo ilaah ka cabsi aad u socotaan u istaaga Soomaalinimada miskiinka odayga ee 90 jirka hala taageero jawaari kadib isaga xaqi doono qaa'imiinta tuugada ee waxaan soo alifay ee maanta ku jira maanta gabriya fadhiyo gabrana shirka maamulahayo iyo Kamaaludiin waxa idin soo xaqeen Soomaaliya waxa loo dhimanayana waxa weeye nimankan qaa'imiinta intay soo saxiixeen ee Dubai ee la xumaatay arrinta haddana rab inay gadaal ka saxaan oo qarnimadeennadii ay ku saxaan iyo jiritaankan inay ku saxaan iyo sharaftan inay ku saxaan doonayaan ayaad si taa kuleynaysaa waa halaagnimada ugu xun intaasana uga baxay Soomaaliya inaan ka hadlana xaraan ba iga tahay xaraan dib damba laakiin baarlamaankaas ay dhibay wanata xaq wuxuu ku jira haday run sheegayaan oo Soomaaliya daacad lillahi ee ka socdaan niman kale bari Cabdi Xaashi ha soo istaago labada aqal hal la friisi isla bariba isla saacada ha lagu kala baxo ha keensadana waxa ay doonayaan ha lagu kala baxo ma ogola mana doonayaan waxa ay wareejinayaan oo kaliya waxa weeye inay ka fariijiyaan jawaare meeshan oo ay keenaan mudayna sharaftiisa maanta waa dhimatay شرفتي maanta waa dhimatay nin wadani u haysteen Soomaalida wallahi oo billahi tallahi 100 kun $90 baa maanta adduunkaada iyo akhridiisa seejiye laakiin taariikhda aniga igu soo qorta muday 40 cishaan u qabtay foodi cishaan u qabtay 40 cisho ayaan muday u qabtay igu soo kala barta awliinimadeeda waa been muday degdeg baad caafimaadkiisa isbedel ku arki doontaan 40 عشاء 40 كان وقبت مودي هادو كهل وايو يسيدا ورنت شيغي وايو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خير بان ايدين جري انيغنا وا ايدين كتغي باي برلمانكي اسو ويديو حالك واساس سوماليه waxa socdana wataas خير بان ايدين رجينيا وويلكي روحانتا ديب دنبا افار دنبا سوماليه hadii aan kaga hadlo aniga ibn sina أنا أمن السنة إلا تن أن شيء يلا هدي يلا أو اللي يرد كعدنا وقصوا الله من دونا لكن كم صور لابتين وبلن تيجي سيد تاريخ زمان يقرأ ولا ليالو وسيدي يطبنك بيشة هدو إلهي يرادو دب دم فيديو كنت با هدي يقول أركتان أنا حلال قدلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.